xaqiiqooyin cilmi nafsi ah oo aad isku aragto adiga taasoo calaamad u ah inaad qof danaynayso. Haddaba muuqaalkan waxaan kuugu siin doonaa dhowr arrimood oo ku tusaya inaad qof u baahan tahay adigana aad iska indhatirayso, mise aad naftaada ku sasabayso inaadan u baahnayn qofkaas. Haddaba si aan muuqaalkani u bilowno, marka hore si wanaagsan ila soco si aadan ugu wareerin calaamadaha aan halkan kuugu sheegi doono. Aan bilowno saaxiibayaal. Number 1, waxaa jirta xilliyo aad adigu isdhahdo qofkan wac oo la sheekayso, waqti la qaado, haddana aadan wacayn, adigoo isku qanciya waxyaabo mal-awaal ah, sida inay ka wanaagsan tahay wicitaanka inaad aragto meelaha qofkaas laga heli karo. Haddana waxaad isku qancisaa inaad ka dhawaato meelaha aad codkiisa ka maqli karto. Haddana waxaad ku fikirtaa inaadan qofkaasi u baahnayn. Number 2, cabsi badan iyo wadna garaac saa'id ah markaad qofkaas aragto. Tani waxay ka imaataa pressure ka dhan ah rabitaanka qofkaas. Haddaad kala hadasho waxaad rabto arrimaad weydaa, arrimo ka xanaaqa iyadoo aadan u fiirnayn qofkaasi inuu isagu xitaa ku rabo adiga. Markasta waxaad ka cabsataa inaad weydo ama uu kaa tago adiga. Number 3, waxaad marmarka qaar iska indhatirtaa inaad u baahan tahay qofkaas, oo markay indhihiinu isku dhaco waxaad iska dhigaysaa qof aan dan ka lahayn, adiga oo arkaa inay tahay ixtiraam iyo xishood. Waa wax loo baahan yahay gabadhu inay ka xishooto wiilka ay jeceshahay, waana calaamad weyn oo aad isugu arkayso inta aad qofkaasi jeceshahay. Number 4, hadduu adiga qofkaasi ku soo aado waad iska indhatiraysaa in aadan adigu rabin, ka horna waxyaabo badan ayaad qorsheynaysaa adigoo leh hal mar le maali kulantid. Tani waa rabitaanka ay ku jirto xishood iyo cabsi aad ka qabto inaad qofkaasi weydo. Jacaylka dhabtaa wuxuu leeyahay cabsi iyo xishood badan. Number 5, markaad isku daydo inaad wacdo cabsi badan ayaad dareentaa, welibana saa'id ah. Waxaadna ku fikirtaa inaad mar kale wacdo, isla xaaladaasna waad ka joogtaa uma wacdid. Number 6, been badan ayaad isku sheegtaa adiga, waayo hadda ayaad ka fikiraysaa qofkaas aan dhammaan kor kugu soo sheegay. I hope inaad wax badan ka fahantay. Antil muuqaalkeen xiga saaxiibayaal, waxaan idinkaga tegaya khayr.